waxaan halkaan uga warbixinaynaa insha Allahu tacaala maalmihii u dambeeyay howlgalladii ka socday deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan oo lagu baacsanayay ama looga xoreynayay deegaanada kooxaha khawaarijta argagixisada Al-Shabaab runtii bishii 8deedii ayaa howlgalka wuxuu ka bilowday deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan oo lagu xoreynayay in cadawga looga xoreeyo deegaanada ay shacabka ku dhibaateynayeen deegaanada la xoreeyay hadaan si kooban u dul maro waxa kamid ah deegaanka Bacda deegaanka Beergidid Jiracle Coomaad Madhooy Hees deegaanadaas oo dhan ayaa cadawga laga xoreeyay runtii waxay ahayd xoreyn iyo abaabul iyo howlgal ay iska kaashanayeen dawladda federaalka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawladda Galmudug waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo madaxda iyo saraakiisha sida qiimaha badan abaabulka iyo hawsha ula socday oo ciidanka iyo saraakiisha mar walba ku dhiirigelinayay in howlgalkan uu guuleysto iyo sidii qorshiga howlgalkan looga xoreey lahaa deegaanada kooxaha khawaarijta inay sidoo ku mira dhali lahaa mar walba u taagnaa waa u mahad celinaynaa saraakiisha sarsare ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha qaybta 11aad taliyaha qaybta 27aad taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka taliyaha xigeenka ciidanka dhulka taliyayaasha guutooyinka ciidamada qalabka sida dhammaan ciidamada daraawiishta saraakiishooda ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan dhammaantood waxaan uga mahad celinaynaa howlgalka sida wadajirka isaga kaashanayaan oo ay u diyaarsan yihiin in deegaanadan laga xoreeyo lahaa sidii looga xoreyn lahaa cadawga khawaarijta Al-Shabaab waxaan rabaa inaan u tacsi soo daahday dhammaan ciidamadii iyo akhyaartii nooga shahiiday dagaaladii deegaanadan khawaarijta lagu dhex maray runtii khawaarijtana ayagana waa la baabiyay jab badanna waa loo geystay deegaanadaasna waa laga xoreeyay kuway ku dhuumaalaysanayaan waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda in laga xoreey doono insha Allah tacaala waxaan si gaar halkaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudan Cali Jeyte Cismaan oo waqti badan geliyay si deegaanadan ay uga xoroobi lahaa cadawga gundhig u noqday saldhig u noqday waqti badan ka soo shaqeynayay haddeertaana u diyaarsan wali inta meelaha ay ku harsan yihiin sidoo hurmud ogon laqan lahaa waa uga mahad celinaya insha Allah tacaala madaxweynayaasha dawlad goboleedyada madaxweyne Cali Guudlaaw Xuseen madaxweynaha dawladda Hirshabeelle waxaan u mahad celinaynaa waqtigii iyo juhdiga uu ku bixiyay sidii deegaanadan xor u noqon lahayd sidoo kale madaxweynaha Galmudug waa u mahad celinaynaa asagana sida uga go'an tahay in la iska kaashado in la xoreeyo deegaanada laga xoreeyo kooxaha khawaarijta Al-Shabaab waxaan rabaa inaan halkaan si gaar ah uga tacsiyeeyo agaasimihii maaliyadda degmada iyo maaragtay ragii akhyaarta ahaa oo la socday ee ku shahiiday kooxaha dhagar qabayaasha qaraxii maaragtay u dhigeen waxaan leenahay runtii nin qiimo badan ayuu ahay si guud ciidamada markaan maaragtay uga tacsiyeyno uga mahad celino howlgalkii haddana waxaan rabaa si gaar ah inaan runtii dareenka la qaybsado agoontii eheladii iyo asxaabtii oo maaragtay saaxiibkana uu ka baxay waxaan leenahay Cabdullaahi Xashi Cumar runtii Allah ku naxariisto meel khayr loo wanaagsan ayaad ku baxday waana kaaga mahad insha Allah tacaala waqtiga adkaay oo khawaarijta in la diriro ku soo baxdane duco iyo jaso Ilaahay agtiisa inaad ka hesho ayaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waana qof kasta oo shabaab la dirirkiisa ama shabaab juhdi ku bixisa sidii loola diri lahaa waxaan rajaynaynaa agoontii iyo maaragtay dadkii ehladaha inaan gacan ka geysan doono oo xanaanayn doono ayaan rajaynayaa insha Allah tacaala waxaan ku soo gabagabeynayaa warbixintayda baaq aan u dirayno hay'adaha samafalka waxaan leenahay cadawga waa la xoreeyay deegaanadu waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin in maaragtay dadka la soo gaarsiiyo waxyaabaha degdega ah ee ugu aasaaska u ah nolosha oo biyo ugu horeeyaan deegaanadii shabaab laga xoreeyay waxaan hay'adaha samafalka dhammaan oo ka wakiila dawladda Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan afkooda aan ku hadlayo maanta waxaan halkaan baaq uga diraynaa dhammaan hay'adaha samafalka inay soo gaaraan deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan oo cadawga laga xoreeyay si kaalmo u soo gaarsiiyaan oo degmada Matabaan gudaheeda ka bilaabaan kaalmadii ilaa deegaanadaas la gaarsiiyo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ajiibi doontaan baaqeena oo idinkaga mahad celinaynaa wada shaqayntiinii hore midaana waxaan rajaynaynaa inaad aqbali doontaan saxaafadda oo ayadana nawacaysay waqtiyo badan gelisay si howlgalka iyo warbixinta ula socon leed oo uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala ayadana in ay warbixinadan qaadaan bulshada u gudbiyaan la wadaagaan